Boondere waa mid ka mid ah degmooyinka ugu faca weyn ee ku yaala caasimadda. Waxay ka kooban tahay 4 waaxood oo kala ah Yusuf Alkawnayn, Sinai, Daljirka Daahsoon iyo Nasiib Buundo. Waxaa ku yaalay safaaradda Talyaaniga iyo Jarmalka oo markaa kala ahaa bari iyo galbeed. Waana halka uu deganaa Kamaaludiin Salaax oo ahaa ergey ka socday qaramada midoobay una dhashay waddanka Masar. Masaajidda ku yaala Boondere waxay ka badan yihiin goobaha waxbarasho ee degmada, waxayna gaarayaan 16 masjid. Hal ka mid ah haatan ma shaqeeyo, waxaana ahaa kii ugu horreeyay degmada ee laga dhiso, waana masjidka Afleershe. masaajidka Afleershe oo Boondere ugu horreeyay maanta waxaa ilaahay mahadiis dad oo noo dhisnay haddii heleen hataa na noo dhisaa jeclaan jirin. Hadda waa baaba'ay. Markii hore waxaa dhisan kooga dadaa dhisan, markii dambe Turkigaa dhisay. Turkiga wax malaga qaban isla markiina saana u baaba'ay. Haddana waa ujeediin waa baaba'san yahay. Wasaaradaha arrimaha gudaha, warshadaha, boostada isgaarsiinta, waxbarashada iyo midda caafimaadka oo loo aqoon jiray Isbitaal Raafo ayaa ahaa goobihii safafka dhaadheer ay u geli jireen dadka Soomaaliyeed si ay u helaan adeeg dawladeed ay u baahnayeen. Haddaba sidee ayuu ku baxay magaca Boondere? Bismillahirrahmanirrahiim. Magaca Boondere sida ugu maqaalo ah wuxuu ku baxay nin dheer oo waxa joogi jiray maxaan ku iraahdaa sameeya isheeg kobaha sameeya. Marka ninkii loogu magac daray la yiri waagi hore magaaladu ay cidla iska ahayd oo ninkaas wuxuu ku lahaan jiray rug oo kobaha ku sameeyo. Degmadu waxay leedahay iskoolaad la yigleelay xilligii dawladdii dhexe oo ay ku soo waxbarteen dad badan oo reer Boondere ah, waxayna ahaan jireen kuwa si bilaash ah wax looga baran jiray. Ilaa 7 iskuul waxa ugu horeeyay iskuulka la yiraahdo iskuul Boondere, iskuulka la yiraahdo iskuulka Kacaanka, iskuulka la yiraahdo Sheekh Xasan Barsane, Yaasiin Cismaan, Yusuf Alkawnayn, Wilwal iyo iskuulkan oo la yiraahdo 12 Oktoobar oo hadda dadkii u yaqaaniin 9 ka bacdi iskuulka Qasabka. Ma iskuulka la yiraahdo ay u yaqaaniin dadka wuxuu ahaa to majamac umal qura. Laakiin waagi hore waxa la dhihi jiray oo dawladda hore oo militariga Kacaanka ahayd waxa loo yaqiinay iskuulka Qasabka. Halkaan aan taaganahay dadka reer Boondere waxa ay sheegeen in 1972 ay noqotay halkii lagu aasay qabyaaladda. Xarumaha taariikhiga ah waxaa ka mid ahaa Daljirka Daahsoon, Xawataako, Masxafka Qaranka oo loo aqoon jiray Iskool Disciplina Islamic, masaajidka Afleershe iyo goobo kale oo dadkii yaqiinay ay geeriyoodeen inta noolna ay xasuusan waayeen. Waxaan u sheegaa inay taaladani tahay taalo taariikhiya oo lagu xusayo dadka ciidamadii ahaa jiray ee aan la aqoonsan markii geeriyoodeen aan la aqoonsan loogu magac daray militariyoota macneedu saas waay. saas darteed waxyaabo kalena waa jirtaa taaladan berigii sii horreeyay waagi hore Talyaanigu joogi jiray meesha taalay ahaa jirtay oo moolaminta Boondere la dhihi jiray iyadoo taaladaas meeshaas ku taalo ayaa xorriyadda markii la qaatay la baabaashay. barxaddan weyna waxaa loo baxshay barxadda Batris Lamumba, barxaddan weyn oo baarlamaanka iyo taalada u dhaxaydo barxadda Batris Lamumba la dhihi jiray. baarlamaankana X waxaa la dhihi jiray Casa del Facha loo yaqiin. iyadoo Casa del Facha la yaqaan markii 1956 markii baarlamaanka la abuurayay Soomaaliyeed ugu horreeyay waxaa loo baxshay Assembleya Legislativa, baarlamaanka ku meel gaarka. Boondere waxay leedahay hal heesyo ay isticmaalaan dadka reer Boondere oo ah is-afgarasho guud ay isku fahmaan. Marka libaaxna waxay ugu bixiyeen waxay ahayd degmooyinka ay hormuud u ahayd waagi Kacaanka. Marka saasa magacaas ay ula baxday degmo qadiimiya haddana yacni maxaan ku iraahdaa degmooyinka hormuud u ah maaragtay dad reer magaalo degan yihiin maaragtay maxay tahay horumar fiican leh oo waxay ahayd degmo muuqata ah oo la jecel yahay. degmooyinka waxaan ka warqabaa waagi Kacaanka degmada Boondere iyo degmada Waaberi in hataa dawladdu ay yacni labada degmo oo la siiyo mudnaanta inay labadaas degmo ay deris la tahay 5 degmo. degmada Shibis, Yaaqshiid, Wardiigley, Xamarweyne, Shangaani 5 degmo deris la tahay. xidigihii lafdhabarta u ahaan jiray qaranka ee kubadda cagta waxay ka soo bixi jireen degmada Boondere iyagoo badankoodii ahaa lafdhabarta xulka qaranka.
waxayna ku dheeli jireen garoonka Waamo oo ah mid waqti dheer dhisan. Hadalla saameyn reeba ayay madaxdii dawladdii kacaanka ka jeedin jireen taalada daljirka Dahsoon iyagoo si sarbeeban ugu gudbi jiray fariimaha ay doonayaan shacabka Soomaaliyeed oo halka isugu imaan jiray. laakiin meeshaan markuu Maxamed Siyaad Barre ka qudbaynayay waa markii marar badan markii dagaalkii la aadayay 77 oo shirab oo watirshaba oo wuxuu yiri hadalkiisii aan ka xusuustaa wuxuu yiri niman ka reey jiray rabe amiga reeb amir ruqsay marka inta bilaw dagaal berigaas dagaalkaas saas u qudbeeyay waxa kale lagu khudbada laga jeediyay marka uu leeyahay Allah u naxariisto Xuseen Kulmiye yeere yam yaas qaaday yam marka uu leeyahay halkaan ku qudbeeyay. Ciyaaraha hidiya dhaqanka aad ayaa looga xiiseeyaa degmada Boondheere waxayna hoy u tahay degmadan folklore dansiga iyo ciyaarta kabdhoodka oo ah mid leh shuruuc iyo hab u qaas ah dheelitaankeeda. shuruucdeeda qaaska ah oo ay jidaysteena waxa waaye horta marka hore oo ninka uu imaanayo waa inuu wato gamoyo qaanso marka ugu horeyso waa inaad qalab wadato gamoyo qaanso aad wadato kadib waa la qaybinaa laba doora laga dhigaa doora lagu daraa marka waxay leedahay xuduudo iyo shuruuday leedahay shuruudadeeda qofta waa loo sheegaa saddex gamo qofta ku dhacdo istaagi xabsiga aad kobtii surre. Xaaladda guud ee Boondheere waa mid degan waxa ka socda dib u dhis iyo hanaqaadka nidaamka dawliga ah ee ka jira degmada laakiin ma badna alxamdulillah degmadeena aad ay u degan tahay amnigeedu wuu fiican yahay yani 99% waa fiican taan dhihi karnaa. booqashada degmada Boondheere ayaa ahayd mid xasuusiya taariikhda la daahay aan ku soo ogaanayay waxaana jirta wax badan oo u baahan ogaasho si taariikhdu u noqoto mid shaacsan. Maxamed Ciise Koona, Goobjoog, Muqdisho.